عربا مدن مدحوينه إنهم كبلانو تضواتا يشان سنة كدي يعني سوون مد هبين أي هوفي عن كجرتو مقالة مقدشو تضواتا يشان سنة كدي بيان قد دقينا حفلة اللي يرسو ماليات أو متيستي إن سند والبا لو دبال دقيو تضواتا يشان سنة كدي تضوا بقولي كنتم كنوا سنة كدي من لو دبال دقي دون هدي لا يراد وحيكون متيستان إن لو دبال دقيو وحيد ليان جوشة يحريد دا عاو هالكن كفر دان كل جيل وحيكون متيستان إنه موجيان معنى كوين معناه يكفر ديان يجو دادو دا يود حيسي شان يتوان يكوي لبعضن سنة waxay waqtigaas ku fikireen inay dalka ka xoreeyaan gumaysi waxay ku fikireen inay mideeyaan ummadda Soomaaliyeed waxay waqtigaas ku fikireen inay suuliyaan oo ay dalka ka tirtiraan qabyaaladda waxay waqtigaas ku fikireen inay ummadda Soomaaliyeed wax baraan bilaabaan qorista af Soomaaliga waqtiga iyada waxay waqtigaas ku fikireen iyadoo aanay maskaxda dad waqtiga jooga geli karin maadaama uu wadanka joogay gumaysi inay naftooda iyo dhiigooda ku bixiyaan inay gumaysi wadanka ka xoreeyaan sababtay ugu xoreynayeen waxay ahayd in caawa annagu halkan aan fadhino sababtaas waxay ahayd in dadka iyaga ka dambeeya aanay arkin gumaysi dambe in didibada loo taago qaran Soomaaliyeed oo ay harsadaan dad Soomaaliyeed waxaan ilaahay uga baryaynaa kulligood inuu ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan ilaahay uga baryaynaa awlaadii iyagu ay ka tageena in ilaahay ku hanuuniyo dariiq iyagu ay mareen annagu waxaan rajaynaynaa inay noo noqdaan tusaale aanu adeegno kuwa hadda iyaga daadooda oo kala ah iyo kuwa naga dambeeya hadii ilaahay yiraahdo dhalinyaradii waqtigaas jirtay ayaan rabaa inaan wax yar ka tilmaamo aqoonta ay lahaayeen way ka yaraataan haddaan leenahay dhaqaalaha ay haysteen tiknoolajiyada ama casriga waqtigaas jiray isu socodka dhaqdhaqaaqa fursadda isabaabulku waa uu ka yaraa inta aan hadda haysano laakiin 75 sano kadib haddii aad akhriso buugaagta qaarkood waxaad ku arkaysaa gumaysigii ay la dagaaleen waqtigaa isaga ah gumaysigii ay la dagaalameen waqtigaa isaga ah si ay dalka u xoreeyaan annagana noogu asaasaan nolosha aan maanta haysano waxay qireen Soomaalidu inay dadka ka duwanaayeen waxay qireen Soomaalidu inaanay aqbalayn in la gumaysto waxay qireen dalalkii ay soo gumaysteen iyo Soomaaliya inay kala laba yihiin waxay aqbaleen Soomaalidu inay ogol yihiin dhiigooda inay bixiyaan si dalkooda ay u xoreeyaan taariikhdii ay noo sameeyeen ayaa qof walba Soomaaliyeed oo dadiisu yar tahay ama weyn tahay marka uu taariikhda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda ku jirta baalka dahabka waxa uu ka hadlayaa dhalinyarada iyaga taariikhdii marka ay noo sameeyeen dhalinyaradaasi waa tanaan caawa halkan ku fadhino laakiin waa taariikh u baahan in la xafido su'aashaan rabno markii inaan isweydiino haddii aan dhalinyaro nahay ama dhalinyarada halkan joogta ama kuwii dhageysanaya waxaa laga yaabaa in kusimaha madaxweynaha iyo aniga lafteydu aan isku tirino dhalinyarada laakiin su'aasha aan rabo caawa inaan halkan iska weydiino waxay tahay haddii taariikhdeenu ay sheegayso waxa laga soo maray qarannimada waxa laga soo maray xorriyad raadiska waxa laga soo maray in dalkeenu maanta uu joogo meesha uu joogo hana haysta dib kale su'aashaan isweydiinayna waxay tahay taariikhda iyada sidee baan u xafidnaa su'aasha kale aan isweydiinayna waxay tahay maxaa la gudboon dhalinyarada maanta joogta sida mar walba aan sheegno wadanka 75% waa dhalinyaro waxaan hore u sheegay oo aan marar badan hortiina ka qaray
in haddii aad ka tirsan tahay shirkaddaasna ay u qaybsan tahay saamiyada ay u qaybsan tahana 75% ay qofi ku leedahay faa'iidada shirkaddaas ka soo baxda 75% waxaa iskale cidda leh saamiga 75% dhalinyarada maanta joogto waxa ay fursad u heleen marka inay qaranka Soomaaliyeed haddii loo qaybiyo saami ay ku leeyihiin 75%. laakiin waa inay fahmaan marka hore waxa ay qaranka ku leeyihiin. waa in la bedelaa dhaqankii ahaa qaranka iyo dawladdu aniga maxay tari kartaa oo lagu bedelaa anigu maxaan qaranka iyo dawladda iyo dadka u tari karaa. macnaheedu waxa ay tahay haddii uu jiro wiil ama gabar dhalinyaro ah oo da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 30 ama 15 ilaa 25 sano ama ku fila kuwa maanta aan halkan ugu dabaaldegayno waqtigii ay jireen, waxaad isweydiinaysaa 75 sano kadib maxaad rabtaa ummadda Soomaaliyeed inay kaa sheegto. si wax lagaaga sheego markaa oo taariikhda lagu qoro waa inaad shaqaysataa. wiilashii gabdhihii waqtigaa jiray waxaa hortaagnaa gumaysi, waxaa hortaagnaa dhibaato, waxaa hortaagnaa qoray lagula dagaalamayo iyaga. idinka maxaa idin hortaagan maanta? idinka waxaa idin hor yaallaa waddan xor ah oo waqtigu casri yahay oo la sheegay waddankiinu inuu yahay waddan aad u khayraad badan oo fursad dahabiya u leh inuu leeyahay shidaal iyo macdan iyo kalluumaysi iyo beero iyo ganacsi kale. idinku waxaad fursad u leedihiin inaad adduunyada la tartami kartaan sababtoo ah aqoonta aad leedihiin. laakiin waxaa isweydiin mudan maxaa idinka hor taagan inaad bilowdaan is-abaabulkii ay bilaabeen dhallinyarada aan caawa u dabaaldegeen. waxba idinkama hor taagna, keliya waxaa la rabaa inaad ku sifowdaan waxa ay ku sifoobeen. waxay ahaayeen dhallinyaro wadaniyiin ah, waxay ahaayeen dhallinyaro xornimada jecel, waxay ahaayeen dhallinyaro midnimada jecel, waxay ahaayeen dhallinyaro dawladnimada jecel, waxay ahaayeen dhallinyaro ka soo horjeeda qabyaaladda, waxay ahaayeen dhallinyaro tiro yar laakiin tayo badan. waxaa kale ahaayeen laba arrin oo kale. waxay ahaayeen dhallinyaro qalbiyadooda isu furan yihiin oo isu daacada. waxaa kale ahaayeen dhallinyaro leh aragtiyo ku salaysan ujeeddo aada u fog. waxaa laga yaabaa inay ka fikirayeen anigu maantay waxaan gelayaa dhib si dadka iga dambeeya ay u helaan noloshayda ka fiican. waxaa loo baahan yahaa marka haddii hamigiinna iyo quluubtiinnu ay u ballaaran tahay sida ay u ballaarnaayeen hamiga iyo quluubta dhallinyaradii waqtigaa jirtay, iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen midnimo, iyadoo gumaysi jiro ayay raadiyeen xornimo, iyadoo gumaysi jiro ayay keeneen xornimo soona celiyeen sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabnaa marka hadalka dawladnimada dhalinyaro inaan ficil ku bedelno. waxaan rabnaa inaad ogaataan ku dhowaad 30 sano inaan ka soo baxnay dhib badan. waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay bulukeeti la kor saaray, maalin lagu daray, saacad qof dheeraada uu shaqeeyey, dulqaad qof uu muujiyey. waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay qof codkiisa kor u qaaday oo yiri ma aqbalayo cadaalad darro. waxaan rabaa inaad ogaataan dawladnimadu inay tahay gabar Soomaaliyeed oo soo istaagtay oo tiri ma aqbalayo in xuquuqdayda la dhaafsiyo. waxay tahay dawladnimadu dadka Soomaaliyeed oo qaba baahida gaarka ah oo yiri waxaan u baahannahay cadaalad. waxay tahay dawladnimadu qof walba oo Soomaaliyeed oo yiraahda waxaan ahay Soomaali
waxaan ahay muwaadin qabyaalad iyo xoog dalkan kama shaqeeyo dadka Soomaaliyeed oo dhan waxay leeyihiin xuquuq isku mid ah kulligeena waxaan rabnaa xaqeena in la siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan u sheego maanta ummadda Soomaaliyeed way ka fursad badan tahay waqtigii isaga ah way ka dhalinyaro badan tahay way ka xoolo badan tahay wayna ka aqoon badan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay dhalinyarooy inaad hurdada ka kacdaan dawladdan wax ka sugaynaa macnaheedu waxay tahay ma rabtaan inaad waajibkiina ka soo baxdaan dawladdu waa idinka boqolkiiba 75 shacabka Soomaaliyeed waa idinka dawladdu waa inay idinka baqdaa dawladda waa inaad xukuntaan dawladda kuwa ka shaqeeya ama madaxda ka ah oo anigu aan koow ka ahay kusimaha madaxweynaha gudoomiyaha golaha shacabka halkan fadhiya waa adeegayaashii waa mas'uuliyiin la wakiishay ma ahan milkiilayaasha qaranka waa idinka الله naxariiste dhalinyaradii soo halgantay oo caruurtooda caawa halkan qaar kamid ah aan ku salaamay waxay nooga tageen dhaxal taariikhiga dhaxalkaas taariikhiga ah waxa uu baahan yahay in la xanaaneeyo waxa kale loo baahan yahay dhalinyarada hadda joogtana inay ka tagto dhaxal markaad aragto taalooyinka magaalada ku dhisan ama kuwaas ay waaye loo sameeyay ama dalig jirka dahsoon waa inaad fikirtaa oo tiraahdaa wiil ama gabar Soomaaliyeed ayaa halkan taalo looga taagay waxaa looga taagay inay lahayd ama uu lahaa macno ka weyn macnaha anagu aan leenahay sababta 13 qof oo dhalinyaro ah sanad walba 75 sano loo xuso waxay tahay macnaheedu inay mutaysteen wax inteena kala aanan mutaysan si qarannimada Soomaaliyeed meel loogu hubsado qof waa inay mutaysataa waxaan dadka kala mutaysan karin qaar waa inay u kacaan qarannimada Soomaaliyeed qaar waa inay arkaan waxaan dadka kala arki karin qaar waa inay bixiyaan naf kuwa kala aan bixin karin qaar waa inay sheegaan run aan la sheegi karin qaar waa inay iska hormariyaan dad aan kuwa kale iska hormarin marka caawa maraba kaliya inaan dabaal degno anoo u mahad celinaya walaalahani iyo mas'uuliyiintii soo abaabulay xafladan maamuusan waxaan rabaa Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaro inay hurdada ka kacdaan si ay hurdada uga kacdaan waa inay ogaataan waxa aad haysataan waa inaadan ka noqonina marti guriga idinku aad degantiin waa inaadan suginina inuu qof gurigiina idinkugu yimaado oo idinku sooriyeeyo waa inaad ogaataan dalka idinku inaad leedihiin laakiin waa inaad isu abaabushaan si midaysan tayaysan hufan oo Soomaaliyeysan waa inaad isu abaabushaan si ka turjumaysa 13 Soomaaliyeed si ka turjumaysa kuwii xorriyadda noo keenay si ka turjumaysa waxa aad rabtaan caruurtiina inaad uga tagtaan 2018 waa muhiim inay noqoto sanadkii dhalinyarada sanadkii aad kulligiin sabaabushaan sanadkii aad tiraadaan ma aqbalayna musuqmaasuq dambe ma aqbalayna xaqdarro ma aqbalayna siyaasiyiin iyaga kaliya ka tashada danta ummadda Soomaaliyeed sanadkii aad tiraadaan waxaan rabnaa in la dhameystiro dastuurka si xuquuqdeena loogu qoro sanadkii aad dhihi lahaadeen waxaan rabnaa dalka in la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah sanadkii aad dhihi lahaadeen waxaan rabnaa dalkeena inuu ka xoroobo tuugsi sanadkii aad dhihi lahaadeen sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada soo celinaysa sanadkii aad dhihi lahaydeen Soomaaliya waxaa gacanta ku qabsaday cid iska lahayd ma aqbalayna cid dalkeena duminaysa caawa marka waxaan rabaa haddii Ilaahay yiraahdo Ilaahay na gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa wasiiradda iyo dadka soo abaabulay xafladan iyada waxaan rabaa sanadkan sanadkiisa in dhalinyarada looga yeero halkan la weydiiyo su'aalaha ah
12 bilood oo soo dhaafay oo aan halkan isugu nimid kadib taaladii SYL meeqay ku jirtaa taaladii sharafta iyo qarannimada raadiskeeda xagee bay ku jirtaa sidee bay kuugu muuqataa inaad noqonayso qofka la rabo in 75 sano iyo 750 kun oo sano ummadda Soomaaliyeed ay u dabaaldegto waxaan rabnaa inay noo sheegaan inaanay dowladnimada cid ka sugay inteena haysa xukunka hadda na waxaan rabaa inaan u sheego inuu ammaano nagu yahay ammaanadaas aan xafidi doono marka aad soo diyaar garowdaan dhalinyaradiina ay dhageysanaysaa halkan fadhida oo 75% shacabka Soomaaliyeed ka ah oo ah mustaqbalkii iyo madaxdii berito marka aad soo diyaar garowdaan waxaad noogu imaanaysaan haddii Ilaahay yiraahdo ammaanadiina oo jabnayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh